maanta oo bisha tahay 25 bisha toddobaad 2017 waxaa nasiib wanaag ah in guddoonka iyo guddiga fulinta ee goos ay fursad ay u noqotay in ay la kulmaan ama ay soo dhaweeyaan xubna mudan isboortiga Soomaaliya taariikh weyn iyo ku leh kana soo qabtay xilal badan ama aha dhinaca mas'uuliyadda ama dhinaca ciyaaraha ama dhinaca mataqaana garsoorka marka anagoo ma hadda ku kulansan hotel Shamow waxaan sharaf noo ah in aan ka bilaabo xogayihii ugu horeeyay Soomaaliya ee guddiga Olympiga Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Hadi oo ahaa xogayihii ugu horeeyay Soomaaliya xilligii la abuuray ama la dhisay guddiga Olympiga Soomaaliyeed la magacaabay xogayihii guud waxaa kaloo dhinaciisa fadhiya midigta ah Cabdullaahi Xasan Duke ku magacdheer oo ahaa national teamka ama xulkii qaranka Soomaaliya ugu horeeyay bersamaadkii ilaa iyo maanta ragga ugu taariikh kubadda cagta Soomaaliya ugu horeeya waxaa dhinaca bidixda ka fadhiya ila aan leeyahay yani waa Maxamed Baare oo ahaa ciyaaryahanadii xulka qaranka ee kubadda miiska ama table tenniska ilaa muddada bersamaadkii waxaa dhinacaas ka sii fadhiya Ibrahim Xuseen Roobe xubin guddiga Olympiga Soomaaliyeed oo ah yani la taliyaha wasiirka wasaaradda waxaa ku sii xiga gudoomiyaha waqti marxaladda maanta sanadkan hadda lagu jiro xilka haya Cabdullaahi Tarambi Maxamed Cabdullaahi Tarambi waxaa ku xiga kusimaha xiriirka gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya ciyaaraha fudud Faarax Macalin waxaa ku xiga Maxamed Xuseen Xurshe Eenow oo ah gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta waxaa ku sii xiga Abubakar Islow oo member guddiga Olympiga Soomaaliyeed ahna dadka aan mataqaana odayaasha mataqaana xagga cumdaha ama nabadoonnada yani xagga mataqaana aan yani ka shinsano waxaa ku xiga General Maxamed Faarax oo aad taqaaniin ahaa garsooriyaashii xilliga bersamaadkii garsoore caalami ah muddo sport Soomaaliya mataqaana kubadda cagta ka ahaa taariikh fiican ku leh waxaa kaloo ku soo xiga Cabdi Xasan Cali Gaabo soona qabtay xilka taa mataqaana xogeynta goos taa mar si ku meel gaar u qabtay duq magaalada Muqdishona ka noqdo Soomaaliya waxaa ku xiga Maxamed Aadan Jeelle oo ah yani dhakhtar anta wasaaradda maxamed xagga dhinaca arrimaha caafimaadka ahaana garsoore haddana kamid ah xiriirka Soomaaliyeed iyo kubadda kolayga garsoore caalami ah kubadda kolayga marka fursadaas galabta maanta waxaan siiyay isla markaa anigoo hadda yani ku hadlaya magaca mataqaana Maxamed Axmed Culow Xaaji Culow kana mid ah mataqaana guddiga Olympiga Soomaaliya xubinka ah isla markaan u qaabilsan arrimaha xiriirada jaaniskan iyo galabta fursadan aan meeshaan ku wada kulanay oo ahayd yani haddii loo fiirsho maanta yani fursad weyn oo ku qiimaheedana oo ahaa adduunyada waxay ku fiican tahay taariikh in laga tagaa ragga hadda halkan jooga waxaan maleeyahay muddo dhowr iyo 20 sano iyo shii aanan ku kulmin dalka gudihiisa saas awgeed waxay maanta isla garteen guddiga Olympiga Soomaaliyeed in la kulan yar in la qaato inkastoo aysan mudnayn arrinta maanta ayaan laakiin ay yihiin yani mid ka sii weyn inay la kulmaan xaaladii iyo mataqaana laga wareysto taariikhda Soomaaliya kubadda isboortiga Soomaaliya wax ka og marka aniga waxaan jeclahay inta inaan ku ekeysto waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha guddiga Olympiga Soomaaliyeed Cabdullaahi Axmed Tarambi in yani munaasabadan ujeedadii iyo muraadka laga lahaa in wax ka yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim Xaaji Culow baasiyeen isbartaankii iyo munaasabadda inuu noo furay wadda wax kale ku dari maayo waxaan leenahay walaalahayna oo inta badan dibadana ku maqnaay soo dhawaada waddanka isagoo nabada oo sharaf iyo heybad leh ayaad intiina badan ka soo cayaarteen ka soo tababarteen ka soo garsoorteen ka soo maamusheen marka maanta adigu waa nagala sii badan anaga maamulka waxaan kusoo hadlay
wadankii alxamdulillahi rabbil caalamiin hadda kale xoogaa inkastoo maalin ka dambe xoogaa ka soo reynayo oo waagii aan bilaabeynay waxa la yihahdo green line iyo xaggii iyo waxyaabo kale xirnay laakiin culeyska weli waa lala harjadaa marka anugu waxaan isku daynay taariikh gaaban hadda adan ka shekeeya dadkii wax kasoo bilaabay waa fadhiyaan cadda gaabo iyo group waxaa jooga maaragtay runtii waagii 93gii maaragtay la isku yimaado la yihahdo war sportigiisa u soo naleynaa rag badan oo odayaala allah u naxariisto intii dhimatay wax ka soo abaabuday waa jireen qaar dibadda ku maqan yihiin waxaan ka xusi karnaa allah u naxariistay nuur xuseen nuur jeeyo iyo aadan xaaji baro wiish faarax sindiko adugu intaa iyo in kale waa halkaasaa laga qaada la yiri war baashii dib loo keeno ragga ugu horey laakiin waxay ahaayeen axmed cilmi iyo mataqaanaa cadde iyo in hoos laga soo bilaabo hadalka maaragtay maalin baa wax soo taray kabacdi faarax oo ku yimid inuu isaguna maaragtay wiilada aqoonsiga dibadda raadina si kasta ahaato adigu si usoo gabadhacleysan waa on wadag waxayna ahayd markaas waxyaabihii aan isdhahayna maxaa la samayn karaa dadku markoo tashtay waxaa noo soo baxday in laba qodob keliya maaragtay runtii sportiga maanta wax laga samayn karo dibadda inaan noqono calan sidayaal inaan noqono oo aan meel kastoo adduunya isku imaanayna calanka geyno gudahana waxay ahayd in isdhexgal aan ka raadino oo la isdhexgeliyo dadkii isdhexgal sportiga isku dhexgeliyo marka labada qodob ahayd in banaanka markay tahayna flag bearers aan noqono niman calan sida calanka sida oo goobaha la isugu imaanaya aan ka baaqanin gudahana isdhexgal in laga raadiyo oo gobolada tago 99kii iyo 2000kii ugu horreya maleyna garoowa cayaar lagu qabtay kabacdi gobolada in la tago ilaa hargeysa xataa seminaare iyo wax geyno marka dambe cayaar u qabaribna xoogaa yar waxyaaba iyo dhibaato waa iska jireen marka labadii hadaf waa isku wadnay waxaa kaloo noo saddexeeyey in aan ka faa'iideysano wixii suuragal ah international olympic committee-ga ama international sport organizations wixii suuragal aan ka qaban karna ka qabano khaasatan capacity building wax la yihahdo ama dadka aqoontooda in kor loo qaado haddii garsooryaal tahay haddii tababaryaal tahay haddii ay tahay maamulka tahay maanta waxaan qabnaa national court directors oo qabta maamulka kala duwan heerar ilaa advanced ay noqoto in qaarkeenna zoonanka africa mamar loo diro oo IOC ay dhahaan shahaado inta soo siiyaan ay kasoo dhigaan cashara kasoo bixiyaan intaas waxay mogtahay naftigeeda achievement waaye gudahana dad waxayna qabiiro ah oo waxaa la yihahdo advanced sport management course oo bixiya garsooryaal kuliba inta caalamigana waa jiraan inkastoo footballka loo badan yahay waxaa jira tababaryaal level haysta qaarkood isbixi karaan technical course bixi karaan group footballkana waa leeyihin basketna waxaa jooga baarija baa sameeyey intaasoo dhan marka waxaan leeyahay jiritaanka haykalka jiro ayaa lagu helaya waa iska jirto gaabiskeeda waxaa kale oon runtii garan karnaa oo weliba raggii kusoo shaqeeyey ay garan karaan isboortiga xooggiisa wax wada waa dowladda waay haddii kaalinka dowladda meesha ka maqan yahay ee ahayd inay taakuleeyaan qaramada oo ay sponsor gareeyaan xereeyaan tikid u gooyaan diyaaradooda waxooda qabtaan haddii meesha ka maqan tahay waxa soo haray waa wax yar oo aada u yar waay waxay ahayd nabadgelyada inay qabtaan waxay ahayd garoomada
dayactirkoodii garoocaas dhisidooda waxaa iskale dowladda iskale boliciga kalena ayaga iskale oo ah visa lagu imaan karaa adaa meel kale ka raadsan kartid siyaasadda sporti ku socdo national boliciga kaalinteeda ayaga iskale meesha marka waxaan ka dareemaynaa sportiga xoogiisa waxaa wadaa dowladaha tusaale haddaan kasoo qaadano cayaaraha qaar aan ka qayb galno waxaa dhacda kootada sadaqadaha ee dadka la siiyo si annagoo kale la siiyo waxaan ahayn anagu kuma tagno laakiin waddamada qaarkood waxaa arkaysaa inay dhowr boqol oo qof ku imaanayaan markaan kasoo qaadno cayaarihii waxaa lagu qabtaa carabta oo gabdhihii north america yimid ee cayaarayeen 40 waxaan lahayn anaga in laga baxsho tikidhada iyo jiifka raashinka oo jiifka raashinka naftigiisa waa lacag laakiin waddamada qaarkood suudaan oo kale 300 xoogaa ku imaanaya dowladaha ka bixinaya jabuuti ugu yar 60 qof ay ku imaanaysa waxaa keenaya inta ka dhiman 20 ka dheeraadka dowladda ka bixinaysa marka meesha waxaan ka dareemaya dowladda kaalinta dowladda naftigeeda mug weyn ay leedahay laakiin waa rajeynaynaa in mustaqbalka inay kaalintooda buuxiyaan waayo waxaan marka la yihahdo national team weliba marka la yihahdo nationka dowladdiyaa markaas gacanta ku heda oo mas-uulka ah si aad la socotaan kulleyba idaacadaha kala socotaan meel kasta ka qaybgalkeedii waa iska socday dhinaca kale waxaan ka dhisaynay imageka ama maaragtay inaan ku horumar ku sameyno aragtida laga qabo guddiga olambika soomaaliya runtii hadda maanta olambikadu waxay degan tahay xaruntii la dhihi jiray ama chantres bartiiba taas marka waxaan ku sameynay in markaas wasaaraddii joogtay inaan kala xaajoon waxaan u baahannahay meel inaan helno haddaana la siinin dhismo mana sii haayeen waayo international sport organizationska ama xiriir ha aado ama IOC ha aado dhulba kuu gadaayeen sida ayaga boolicigooda siyaasadooda ma ku jirto laakiin haddaad dhul la timaado waa kaa saacidayan inay ku dhisaan marka xafiisyada hadda annagaa joogno kira maaha waxa waaye liis dheerana lagu siiyey dhulkaas inaan isticmaali karno waayo lama la hiibey karo abukaataali waxbay marsiyaan lama hiibey karo lakin liis ahana lagu siin karaa inaa arrimaha isboortiga horumarintiisa u isticmaasha sidoo kale runtii maamulkii wax badan ayaan ka qabanay oo ah transparenty iyo good governancyga in aan dhiirigelino si berito jiilka naga dambeeya ay u helaan inay la wareegi karaan gogol xaaran meel xaaran inay helaan maamuladeeni waxay noqoteen online system financial online waxaan sameynay oo abuurnay qarashka ku baxay in la sameeyo booliciyadii HR-ki booliciyadii financial boolicigii proceduradii wixii oo dhan qarashkas ku baxay maanta waxa waaye waa wax yaallo waay dastuuradeeni ayagoo qoran sanad kasta riboodkiisii insha allahu qofna waa idiin soo gaarsiiyana inkastoo maanta ay ku ficnaad laakiin hadana soo gaarsiinayna sanooyinka u dambeeya o dhan ilaa 2011 kasoo bilaabo xilligii aadan xaaji jibaro uu gudoomiye ahay ilaa deertaan sanad walba waxay la qabtay ribood aan ku dareyna oo weliba aan soo bandhigaynay financial xataa mataqaanaa reportka keliya technicalka keliya aanan dhigin lakin financial soo dhigno shirarkeena annualka ah waa joogto kuwa kale oo EB-ga ama executive boardkana waa joogto lama baabaajiyo waayo waa meesha sida hararkeeda kale yahay go-aanada leh sideeda inuu shiraan waxaan leenahay strategic plan oo meel kasta ka diban gashan strategigaas inaan ku socono midka yeerliga iyo midka 4 sanadlaha intaasoo dhan marka waxay noo keentay in profilkeena iyo waxayna inuu tooso waxaan kaloo sameynay audit international inaan qabsanay oo 2 sano ugu dambeysay na wardigareynayo dadka soomaalida audit haddii maqlaan waa ka cararaan waayo hanti dhowrkii hore waxay maqlaan waa la xiraa qofka waa la dilaa waa saas camal laakiin kan modernka saas maaha midda kale ayadoo qofna kuu qoyso midkaa samaysta wax ka fiican male maalintaan bilaabeen waxaan war waxa aan samaynayna ma saxsannahay mise taraag khaldanaa saaranahay
waa inaan istijaabinaa maalinka hore annaga jeebkeena kala baxnay akaamkeena ka baxsanay laakiin sanadkii dambe markii ay sida arkeen inaan maartay niman ogol in la hanti dhowro inaan nahay ayaga sanadkii dambe ayaga naga baxshay marka wixii horumarina diyaar u yihiin in saas lagu sameeyo laakiin mashaakilka jira waa Afrika oo dhan sida loo batay waxaa sanadka ugu dambeeyay 54 dal subsidiga ama inta albaabkada bixiso waxa soddon dal ah ka badan ku guulaysan waayo maamuladii taad laga sii dhigay xisaabtankii la sii xoojiyay ilaa hadeertaan la joogo waxyaabaha codsanaysa ama barboojilada inay online yihiin marka saankaaga gudoomiyaha iyo xogayaha saankooda oo automatically submit markoo dhan waa saan karey ma baana marka inaa wax oo soo noqonaya iyo malaha marka maadaama adduunyadii hadda ay sportiga sala socotaan xisaabtankiisa la sii badiyey wax aad loo sii daqiijiyey daqiiq laga dhigay annagana maarata runtii waxaan isdhihi karnaa tillaabooyin oo weliba dalka inta badan aan hor loo qaadin ayaan ku dhiiranay inaan sameyno oo nidhaha waa kana xafiiska imaada haddana la sameeyo nimanka hadda anagana Baker Taylor la yidhaha waa niman oo saldhigooda ingiriiska yahay halkan waxay u joogaan inay xataa qolooyinka UN-ka maarata inay hanti dhowraan qandaraas ku in ayaga hanti dhowr sameeyaan marka annagana maadaama xafiisku leeyahay annagaa dooranay oo gacanteena ku raadsanay annagana waxaan u baahanahay kaalena nala shaqeeya qiimaha qaataan laga qaata sameeya sidoo kale macnaa guud governance ahaan go-aanada la gaarayo istaraatiijiga wax la sameynayo guddiga fulinta ayaa la geeyaa marka hore guddiga fulinta ka dooda oo hadda rag badan ka jooga Xaaji Culi iyo Rombi ka joogaan halkaasaa lagu lafuguraa activity-ga iyo budgetka guddiga Olambikada ay leedahay markii la allocate gareeyo waxaa loo gudbiyaa sessionka ama annual general assembly-ga loo gudbiyaa general assembly-gu asna hadduu kasii doodo finalka asaas kale waayo hadhowtii hadda dhowrku naftigiisa waxyaaba uu ku weydiina waxaa kamid ah go-aanadii iyo aaway oo go-aanada markii iyo qorshe aad tusto iyo wixii la go-aanshay kii soo daba raacayo qolooyinka kuu soo diray aad leedahay marka bank statementka markaa u geyso meeshii ka yimidena ku cad akaamkaaga marka ayaga marka waa la xiriiraya wuxuu ku leeyahay annaga waxaan weydiinaynaa toos cidda wax kusoo siisay ma rabno in waxaa noo sheegta keliya annaga xaggay la xiriirayaan waxaa la soo siinaa sanadkaas wax alla wixii ay kusoo direen markaas waxay bilaabayaan step baaritaanka bilaabayaan marka runtii wax badanna waa ka baranay waana adinkana kulley waa dad fahmi karaatiin oo waxaan kusoo shaqeeyey waxaana aan raadinayn waxa waaye inaan isla marka haddaa meel ka tegid waxaa fiican meel asturan oo fiican oo nadiifa xooga qof ina ama ku wareejido la wareego ay fiican tahay juhdi badan iyo waqti badan waa gelinay iyadoo odayaal iyo dhalinyaro loo kala harin sidoo kale ma shaqeyno sidii waagi hore aan loo shaqeeyay waagi hore dowladda jirtay nin walba xafiiso lahay nin walba title lahay titlada anagoo weel haddana shaqada waa ku wada jirnaa haddii tababar noqoto haddii ka noqoto saakada ugu dambeysaan qaar jaranjarta wax ka saaraya meel ma lahan ceel uma qodno maxay cid uma maqno waay marka noocaas ayaan ku wadnaa haddii ilaahay raaho sanadkan qorshaha kale oo aan isleenahay haddii ilaahay noo suuro geliyo waxaan ku dadaalaynay bal sidii aan uga bixi lahayn universal quotada oo ah qofkii qualification waayo wiili gabar ha kaysado si aan uga bixi lahayn ayaan riyadeeda haynaa oo aan isleenahay marka maxaa la dhihi jiray inaan wadno hawl hadda bilaabata ilaa iyo 2020ga oo socota khaasatan meelaha ugu dhow individual sportiga ama sportigan oo jamaaciga aan ahayn fardiga oo cayaaraha fudud yihiin marka cayaaraha fudud ayagu waa shucladii guddiga olambika adduunka o dhan waaye haddii wax kale la waayo meesha keliya furan waayo waayo waxaa rabaa waddan kasta o dhan calankiisa meesha keeno haddii aysan ganax kale iyo wax kala qabin saa la socotaan kolleyba waagi hore in male ma jirin laakiin international organizationska waxay keeneen qaarkood sida footballka iyo IOC-da inay subsidy bixiyaan sanadkii subsidy marka wuxuu la yimid in control badan ay sameeyaan marka qofkii ku dhacana inay ka qaataan aqoonsiga ka laabtaan
kabacdina isboortiga caalamkuna laga xiro hadda suudaan aan marina futbolkada baan la saaray maqa dowladda faragelisay qolo Nigeria in dhaas ku dhacday qolo kasta oo isku dayday inay dowladdii farageliso ayaga isboortigooda meela lagu xiraa waddan soo dhaweynaa meel tigi karaan malaha marka waxaan ka wadaa waxay la yimideen maaragtay runtii inay xisaabta waa la yimideen guddiga olambika hadda wax ganaaxan waxaa ka xasuusta hadda ma aqaan in laga qaado laakiin mar India la ganaaxay waa ka baxeen laakiin labadii ugu dambeysay waxaa ganaaxanayay nimanka la yidhaahdo Kuwait laakiin wuxuu ugu yimid dhinaca futbolka ugu yimid ayagana way futbolka fargeliyeen olambika marka waxay dhaheen ma ganaaxayna ciyaartoyda laakiin waxaan ganaaxaynaa maamulka saas darteed calanka Kuwait ma lagu maraayo ciyaartoyda waxay ku marayaan calanka shanta garan garle ku maraya calanka olambika ku maraya marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo oo gadaal dambe ka yimid awoodahas waagi hore ma jirin waayo dowladda maadaama waxba la siinaynin wasiirku inuu noqdo guddoomiyaha olombikada inuu la magacaabay iyo waxaas ma laiskuma shideynin weli sidii waxa ay hadda xiriirada qaarkood oo aan wax subsidiya bixin nationalka culays badan ma saaran haddii kasoo qayb galaan haddii kasoo qayb gelin waa subsidi laakiin kuwa subsidiga bixiyaan xisaabtan xoog leh iyo ay u baahan yihiin marka yaan hadalka naga dheeraan sababta waxaa waaye waqti hadalka aan gogosanaan rabnaa soo dhawaada bahalka culayskeeda waa wadaa weli maantana waxaan rabnaa faatixada hala isku maro ilaahay inuu nala garab galo intii gobolada waxaan gaari karna inaan fiirino dugsiyada tartana u qabanay ciyaartooy badan oo dugsiyada waa yaryar oo runtii maadaama xamar ilaa iyo markaan tirokoob ku sameynay dugsiyada hoose dhexe ilaa 100,000 oo ardaya dhigata marka waa number weyn runtii waxaan kaloo ka fiirinay maadaama qofka gobolka laga keeno qarash badan oo u baahan yahay qaarkood waxay haystaan mentality kale oo ku leeyihiin reerkii iyo wixii masruufi jiray geelaan wiilala jiray lacag kale keen xoogaana meesha duruufaas ka jirta taas naftirkeedu xisaabta kama maqna midda kale hadda program waxaa lagu soo diray oo la yihahdo athlete career ama ciyaartooyda markuu ka baxo ciyaarta siduu noqonaa haddii uu ka yimid marka hore banaanka yimid marka dambe wuxuu noqonaa drop out noqonaa marka waa nin iska oo fashil waxba qabsan kara noqonaa shalna waxaa laga yaabaa inuu ahay ciyaartooy oo aad maaragtay runtii waana arki kartiin xataa kuwii hore xataa rag badana maanta meelo badan ku daadsan oo ku dhibtay sababta waxaa ma ahayn arday ma ahayn xirfad kale ma lahayn ninka xirfad laha iyo ninka hore arday u ahay weli jaanis waxay haystaa bulshada kula qabsado haystaa laakiin ragga kale dhibaato badan haysto inuu baryootomo iyo imaane sidoo kale waxaa idinka dambeeya is leeyahay waxyaaba aan ka xusi karo waagi hore ciyaartooyda xuquuq ma laha jirin inay codeeyaan ama aayaha ka taliyaan maanta waxaa waaye ayaga uga awood badan xiriirka hal codoo leeyahay ciyaartooyda laba coday leedahay waana constitutional waaye IOC ilaa iyo nationalka atletka commissionka laba coday ku leeyihiin mataqaana congresska doorasho ma galayaan executive-ka ayaga xibintooda meel iska taalla coday ku leeyihiin anaa waxaa maarata runtii la qiimeynaa in ciyaartooyda naftirkeedii oo dadkii culeyska uu ku dhacaayay oo ordaayay oo dhididaayay oo waqti ku bixinaayay marka iyagii in maaragtay la encourage gareeyo maarata qaado ninkaas qofkaas dadka u joogana waxaa shaqadiisa waxay noqonaya inuu ciyaartooyda oo qareen u noqdo advocacy u sameeyo yirahdo ciyaartooyda xaggaas ka dhacday inta ka dhacday footballka waa la xareeyey dhibaatadaas hayso environmentka ka dhacday xagga daawadii caafimaadkii ya time compensation laakiin waa yani bilow fiican hadda in la baro midda kale ay ku dhex tababartaan xataa shirarka iyo waxyaabaha siday u dhacayaan si mustaqbalka markay gaaraan inay hogaanshaan inay ayaguna ay isku dhibtoon ay wax hore usoo barteen yihiin maanta waxaa farxad weynii ah inaan ka soo qayb galo shirkan odayaashii hore lagu marti qaaday aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa guddiga olimbikada oo jaaniskaan na siiyey haddaan aniga iskaga warramo waxaan ahaa ciyaartooy hore marka ciyaartooydii hore waxay ku fiicnaayeen waxay ka qayb geli jireen tartamo badan
waxaan kubadda cagta booliiskan u ciyaari jiray, kubadda kolayga booliiskan u ciyaari jiray, laliska booliiskan u ciyaari jiray, orodada booliiskan u ordi jirnay. anigu 100 mitir boodada hoose anaa iska lahaaba. 100 mitir marna waa laga badinaya, marna waa badinaya. waxaa jira haddana qore isku dhiibka 4x100 ama 4x200, taas qore isku dhiibkana waa maaragtay annagu booliiska aadaan ugu fiicnayn. marka inkastoo lagu naanaasi jiray fardihii booliiska oo orodada sidaan u dhisnayn iyo sidaan xoog u lahayn iyo sidaan u tartami jirnay. marka markii intaasoo dhan aan ka joogsaday si aan isboortiga aan uga dhex bixin, waxaan galay kooraskii garsoornimada kubadda cagta. kooraskii waa ku guulaystay ilaa waxaan ka gaaray inaan noqdo garsoore caalamiya kubadda cagta aan ka noqdo, oon Africa meelo badan aan ka soo qabanno. aniga iyo saaxiibaday aan aad iyo aadna aan ammaan ugu lahayn Africa markaan garsooreyna kubadda cagta. marka aad iyo aad dhibaatadii dhacday kabacdi waxay noqotay dad inay isku xilqaameen inay sii wadaan maaragtay ciyaarihii aan laga marka ammaan weynay leeyihiin dadkaas, dadkii sii wada ciyaarihii, dadkii soo arooriyey ciyaartooydii hore. marka waxaan rabaa inaan iraahdo warnimayo meel fiican aad maraysaan, weli waa la gaari doonaa maaragtay in waayihii hore sidii oo kaleeto in la helo dowladdu ay gacan qabato. waxaa jirta marar badan laga cabanayo, waxaa weeye nin awoodiyaan jirin ciyaartooyda lagu wada qaadi lahaa. marka in yaroo kooban markaa qaado waxaa noqonaysaa ciyaartooydii intuu ciyaarayay 45 daqiiqo hore waxaa arkaysaa inay horeeyaan ay fiican yihiin, laakiin maadaama ay helayn wax bedela dadkaas in maaragtay ayaga qolada kalena ay hesho jaanis ah inay helaan dad isbedela ay dhibaato ku noqonayso. kabacdi badanaaba annaga waxaan aragnaa gelinka dambeana laga badiyaa ciyaar. waa aniga waxaan dhihi jirnay maaragtay ciyaar waa gelinka dambe, laakiin anaga nagu noqotay gelinka dambe ciyaarihii inna laga badiyo. marka waxaan rajaynaynaa insha allah waa fiicanta, meel fiicanaan maraynaa haddeer insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa inay maaragtay aad iyo aad maaragtay isboortiga waa hay-adda keliya oo isdhexgalka iyo dad aruuriska hay-adda keliya ugu fiican wey. dhalinyaradeeda abaabusha dhalinyarada. marka waxaan rajaynayaa insha allahu in wadanka meel hagaaga uu sii maraya, inuu isboortigana saas usii kaco. horta marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta odayaasha maanta halkan lagu sharfay oo lagu soo dhaweynayo, horta anigu wax badan idinkama soo horeynin. teeda kale taariikhda ragga odayaasha ay maanta ka sheekeynayaan anigu heerkaas ilaa maaragtay ma gaarsiisnayn. waayihii dambe horseed iyo batroolka iyo gruubkoodii baan ahaa. marka magacayga waxaa la yidhahdaa doctor Jaalle. waxa aan hadda ka tirsanahay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, guddoomiye sharafeed oo xiriirka Soomaaliyeed. waxaan idinka soo horreeyay wax badan ma ahayn. marka waxaan runtii rabaa in aan odayaashii hore ee wasaaradda isboortiga qayb weyn ka soo qaatay in aan halka ku soo dhaweeyo Hadi iyo Tuke iyo raggii isboortiga iyagoo calanka Soomaaliya sita koob u soo qaaday oo ka mid yahay alle raggii kubadda miiska ciyaari jiray. marka waxaan leeyahay walaalihiin baad ku soo biirtay, soo dhawaada. teeda kale waxaa xusid mudan raggii isboortiga gacanta ku soo hayay
muddadii burburka uu jiray allah u naxariistay ay ka mid yihiin aadan xaaji yabaro weyshi ninkii la yidhaahdo faarax sindiko ragga odayaasha oo dhan raggii gacanta ku dhigay iyaga ka dambeeyey ilaa haddana soo waday guddoomiyaheena goos uu ka mid yahay cabdullaahi tarbi marka aad iyo aad baan maaragtay runtii mahad celin weyn idinkugu haynaa in aad ciyaartooydii iyo magacii soomaaliyeed iyo caalamka soomaaliyeed goobo badan oo caalamka ka mid ah aad maaragtay geyseen oo aad ka soo qayb gasheen idinkoo magaca soomaaliyeed ku haya magaca soomaaliyeed maaragtay ku tartamaya mar raba inaan war ku dheeraado odayaasha ayaan war ku wareejinayaa soo dhowaada welcome بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan ka mahadnaqayaa xafladan qiimaha weyn leh oo maanta lagu marti qaaday sida weyn loo soo agaasimay waxaan ka mahadnaqayaa isla markaasna guddoomiyaha olombiga iyo guddiga fulinta iyo haweenta isboortiga inta isugu timidna waan salaamayaa si gaar ah anigu hadda wax weyn ka hadli maayo laakiin waxaa rabaa dhowr arrin oo lasoo qadqaaday oo loo arkaa inay wax yar qaldan yihiin inay wax ka tataabto muhim igu ah taydi kale inaysan aadin keliya waxyaabaha aan ka hadlaya waxaa ka mid ah anigu cayaartooy badan waa soo ahaa maamulna waa soo galay gobollana macalina u soo noqday sida banaadir camal 7 gobola u noqday macalin labana kismaayo waxaa u noqday marka halna togdheer 10kaas jeer horta macalin waxaa u noqday goboladii naadiga jeeyo iyo waxool iyo otobaar iyo macalin u soo noqday ciyaartooyda 15 sano ciyaari inta ciyaarayna sababtii ma aado ama ciyaar caadi ah marka horta taariikh ahaan anoo soo koobay tayada intaas waxaa kaloo la soo qaadanaa jirta ciyaartooyna waa ahaa garsooran gali maxaan faara isku garsoor ahayn dadkii ka soo baxay garsoorka ka mid ahaa waxaan noo diray beedhawo dadkii ka soo qabtay garsoorka beedhawo ka mid ahaa markaan xamed imid waxaa la yidhi kala dooro ama barsoore noqo ama tababaro noqdo waxaa qasab noqon inaan tababaro noqo marka waa jiya macallin u ahaa garsoor ahaa ma dhihi karin horta meeshan kaga haray garsoorka taas markaa meeshaas kusoo gaabiyo waxaa kaloo jirta waqtigii faaraxa jooga in lai magacaabo guddiga olombiga wakiilka olombiga oo toronto intuu faaraxa jooga wakiilka toronto aniga ahaa oo ku magacawnaa marka horta intaas waxaa waa ogeysiin marka haddii la ogyahay wax ogaan la-aan baa looga hadlaya taasaan u jeedaa waxaa kaloo jirta waxyaabaha oo loo baahan yahay in caddeeyo waxaa ka mid ah garoomo hadda aan qabno 2 garoon waa istaadi muqdisho istaadi banaadir istaadi banaadir waxaa dhisay talyaaniga waxaa wakiilka nin rosi la yiraahdo 55 la dhisay 12 Oktoobar 55 la furay ciyaartii ugu horeysay anaga bilawnay ciyaartii xigtana waxaa waaye Soomaali iyo Kenya iyo Talyaani iyo Kenya ku ciyaaray ciyaartaasna sidaas ahayd in doonta labadaba ay naga raayeen waxaa kaloo jiraan soo xusayaa olombiga magaalada ingiriiska ayaa waxaa laga waday guddoomiyihii ugu horeeyey olombiga waxaa waaye ninka la yidhaahdo cali cumar sheegow marka waxaa waaye taariikh qaldan waay waxaa la rabaa taariikhda isboortiga in ay sax tahay horta marka ugu horeysa talyaanigii rosi nin la yidhaahdo 51 loo magacaabay kooniyaa magacaawday ilaa 61 asaa guddoomiye waxaa ahaa kumasaari sport isla markaas dhaha wakiilka kooni maalintii 61 oo ka baxay cali cumar sheego oo gobernatoore ka ah oo ku wareejiyay cali cumar sheego wuxuu ahaa kumasaariyaat sport boosku asiga hay cali waxaa bedelay xuseen nuur waxaa kaloo bedelay maxamed muuse la yidhaahdoday waxaa kaloo bedelay axmed raagi afartaas gobernatoore isku bedeshay waxayna ahaayeen kumasaariyaat 57 doorashadii oo cabdirashiid iyo ninkii ibraahim cigaal ayaa cigaal waxaa soo magacaabay cusmaan quunka guddoomiye guddiga olombiga cusmaan quunka horta waxaan u soo qabanaya waxaa waaye 67 kontoda maale 67 waaye marka cusmaan quunka waxaan u soo qaadanaya waxaa waaye 2 taariikh oo aad u fiican uu sameeyey marka ugu horeysa asiga waxaa hoos imaanaya prime ministerka awood wasiirow lahaa waqtigaas waxaa jiray waqtigii jeeye la xirayay 56 aakhirkeeda
agoosto 22 agoosto jey waa tii la xiray markii la xiray xabiska la geeyay carabtii odayaashii iyo waxaa iskeeni waayey iyo odayaashii soomaalida carabti waxay soo istaagtay 10 qof aa lagu dilay ninkan 10 diyaan rabnaa markii oo maxkamadda ay soo tiri haddii lagu heshiiyo waa sii daynaynaa xujay ka dhigeen waxay dhaheen 10 diya haddana la siin ma qaadanayno odayaashu waxay dhaheen weli anigu 10 diya nin kuma bixin mana bixinayn waa lagu kala tagay maxkamaddii waxay go'aamisay in 2 sano iyo bar lagu xugmo anoo dagaalka iga bilaabay 4 sano lagu xugmo markaasay baxeen cusmaan quunka u tageen meel walba tageen waxaan rabnaa diyadii rabnaa odayaashu waxay dhaheen diyada waa diidda idina siin mayno cusmaan quunka markii waxuu yeelay isboortigan waxbuu ku aruuriyey wasaaradda waxbuu ku aruuriyey diyo kumbaleetuu siiyey howlaha gudaha u tagay waxaas idinkana geeb bixiya 2 diyuu siiyey si arrintaas carabta iyo soomaalida xumaan aga dhex dhicin wuxuu ka shaqeeyey meeshaas maslaxad guud marka qoladii waxay qaadatay 2 diyo 2 diyaa oo cusmaan quunka ayaa dhameeyey kow arrinta kale oo suubiyey waxaa cusmaan quunka intuu joogay soomaaliya intii asiga ka horreysay afrika cayaaraad ma ka qayb geli jirin soola gudaha soomaaliya maxaa jira kaaf kuma jirin maxaa fiifana kuma jirin kama rajistarsaneen 58 cusmaan quunka wuxuu ka rajistaraaday fiifa iyo kaaf cayaarii ugu horreysay burundi la dheelay 58 waa naga raayeen marna waa ka baraaj ya 68 cayaartii 68 na Eastern Central Africa Ethiopia lagu qabanay Soomaaliya waa ka qayb gashay labadaba taasna waxa barnaamijku Cusmaan Suubi marka waxaan u leeyahay Ali Umar Sheego ninkan in la iska daayo ninkan taariikhdaas oo lahaa asaana ahaa ninkii ugu horreeyay marka taas inaan cadeeyo waa rabay waxa kaloo jirta hataa hadi oo xogay Olympiga ahaa isla markaasna xiriir xoogay u soo maray waxau ahaa qolooyinkii laga soo bedelay wasaaradda ay warsatay musra bilo wasiir ah ay weydiisay wasaaradda waxbarashada asaga ninka la yiraahdo Cabdulla Food Axmed Ciid Charles gurub iyagoo ah yaa Cabsikuur Jaamac haa waxay weydiisatay dhalinyaro aqoon leh in wasaaradda loo soo bedelo si loo kiciyo dadkaas oo ka mid ahaa qolooyinkii agaasimayaasha ugu horreeyay wasaaradda la keenay taasna waxay ahayd waxyaabo oo maartay oo najsaari oo in laga hadlo u baahan marka arrinta hadday tusnaan waxay ahayd olombigii aan kaga wakiil ahaa meesha marka waxaan leeyahay maanta isboortiga arrinteeda waa badan tahay waxyaabo badan aan ka ognahay xiriirada iyo maxaa la yidhahdaa olombiga waa ka wada sheekaysan doonaa laakiin hadda arrinta ugu gaaban oon ka hadli kara intaas waan mahadsantihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الإسلام والعلياء إلهي سبحانه وتعالى يسقى فضل جوان نسكاله الله هالكلمات اللي كنا سيه إلهنا كرجينا إن شاء الله أنت عمرين وقدم إلهي عمر بركة يا عف مادي ذنب دافع إلهي ونسيه arrintan maanta u fadhinana inaan intii u soo halgantay ama maarta runtii maanta inaga hooseysana inaan xusno waa laga maarmaan ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa insha Allah in ilaahay qubuurtooda ilaahay waasac ka dhigo ilaahay qubuurtooda uu ka dhigo roodada mirahadu janna ilaahayna aanu dabadeen inagana aanu ina fidnaynin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah wanaagii iyo mataana xushmadii iyo wanaagii aan soo marnayn ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga qaadir in ilaahay maarta insha Allah inagu celiyo marka aad iyo aad walaalayaal waxaan ugu mahadinayaa runtii walaaladeena maarta maxay guddiga Olympiga iyo guddiga fulinta ee runtii maarta maxay maanta halkaas fursadda noo siiyay anagoo maanta wadanka ka maqnayn muddo 27 sano in ilaahay haddana maanta na gaarsiiyay inaan maarta wadankii dib ugu soo laabano waxaan mahadaasna ugu celinaynaa waxa weeyaan xadiis buu nabigu leeyahay man laa yashkuru الناس laa yashkuru Allah nacam qofkaan maarta u mahad celin dadku wanaag ay sameeyaan ilaahay abuurayna maanta maxay uma mahad celiyaan marka taas waajib bay nagu tahay in dadkii anagu aan kaga tagna wadanka inay maarta raadkii si aanu inooga baabiin inay u maarta dhammaan deegaan oo runtii duruufaha ay soo mareen maarta maxay ay ku wadaan heerkay doontaba hala gaadheen runtii waa wax aad iyo aad aan ilaahay uga rajaynayna insha Allah in ilaahay miisaankooda xasanaadka ilaahay ugu daro adduunyo aakhir labadaba taariikhan marka laga hadlayo walaalayaal taariikhdu sideedaba waxa weeyaan waa aad bay horta qiimo feel ugu fadhido sababtoo waxa weeyaan waxyaabo badan bay dadka xasuusisaa oo anagu markii 63 waxaan ahay dadkii u horeeyay mataqaan maxay waqooyiga runtii laga soo kaxeeyo kuliyadda marka la foolay oo inta ahayd baa anagana lagu furay
marka 66 markii aan ku soo qalin jabinay oo intaas 3 sano aan ku jirnayna runtii sports aad u fara badan meesha ka socday oo ciyaartoy xataa mataqaana tiimam aan u soo diri jirnay magaalada hadday tahay mataqaana tenniska iyo hadday tahay basketball iyo waxaas oo dhan ka qayb gali jireen annagoo fikraddii iyo markaa maaragtay maxay shucuurtaas ay nagu jirto ayaan markaa shaqadii halkan ka bilownay 66 waa marka Ibrahim Rombo markaa iskoola waxaan isku nimaday village Arab halkaas markaa 66 iyo 67 aan markaa runtii maaragtay maxay halkaas aan faahin macallimiintii u horeeyay waxaan markaa ku xigsanay dabeetana in markaa aan la ii soo wareejiyay markaa maxay iskoola meesha central 67 marka waxaanu lahayn markaa laba galin oo shift subaxdii iyo shift galabtii marka waxaan Ali Xuseen baa wuxuu ahaa principal ahaa laba vice principal markaa kala inaani iyo Neero Allah naxariistay marka aanu waxa joogay galabtii 18 class ayaan halka ku hayay markaas aan sportska markaas aan lugta la soo galo basketballki aan halka ka bilownay oo marka culaw iyo maartay xidhi weeshiye markaas runtii waa markaa de markaas soo dhaxgalnay runtii Baarajab Abdulqaadir maartay Baarajab ayaa markaa maartay xidhi president ka ahaa vice president baan u noqday secretary general baan u noqday kadib markaa maartay xidhi ciyaarihii markaas halkaas aad runtii ay maartay xidhi xoogoodu ka bilaabmay oo waxa jiray markaa maartay kooxdii Chantal Sportive baa jirtay waxa jirtay kooxdii markaa maxay Orphan jirtay oo markaa runtii oo aad iyo aad maartay qiimo badnay waxa jirtay kooxdii booliiska oo Maxamed maartay maxay uu sheegay maartay General Maxamed Faarax hadda inaga hadlay waxa jirtay kooxdii Casa d'Italia oo maartay abko iyo groupkiisa marka qiimo waxay lahayd runtii garoonkan ku ciyaarnaana wuxuu ahaa garoonka maanta guddiga Olympic ay xarunta maanta u noqotay waxaan xasuustaa lacagta habeenkii iyo nushilin baa lagu galay nushilinka markaan ururino masarka jeebadan kala soo baxnay baan ku qaadi jirnay haddana barakay lahayd runtii oo maartay maxay aad bay qiimo weyn ay ugu fadhiday oo maartay maxay dadku isku wada jeclaa waayo waxaynu ahayn hal family uma ahayn ilaahay hal qoys uma laga wada dhigay oo wuxuu ku socday spiritkaas ku socday ka waa bari ka soo lugeynay mataqaana ka maartay kaas bulaan ka soo lugeynaya nin waliba mataqaana maxay xamaasadda jacaylka uu qabay sportska ayaa runtii aad iyo aad u qiimo badnaa taas markaa waxay maartay maxay nagarasiisay markaas in uu sportski markaa isagoo saa ku socday batay kacaankii markaa ay soo galaan kacaanka markaa soo galidiisii runtii waxay ka bilaabeen iyagu markaa waxay arkayeen in ummadda waxa kaliya ee mataqaana maxay lagu habayn karaa ama lagu jeedin karaa oo siyaasadii waxaan oo dhan looga saari karaa inay tahay sportska fikradaasi markaa runtii aad iyo aad bay u hirgashay anaa markaa ugu horreeyay wixii wasaaradda waxbarashada laga soo wareejiyo anoo markaa ka soo noqday imtixaanadii maartay maxay eydharka oo gobollada markaa bari oo dhan imtixaan ka soo qaaday eydharkii oo ahayd maartay maxay Garowe iyo mataqaana Eyl iyo Qarne iyo Boosaaso soo noqodkii aan soo noqday aan wareejiyay markaa imtixaanadiiba markaas SRC-da warqadii iga timiday leeyahay markaa waxa lagu soo wareejiyay agaasiga guud ee sportska meesha Cabdilaahi maanta uu leeyahay mataqaana waxaan ahayn de dhowr qof oo maanta Chantal Sportive aan xafiis ku leenahay annaguna markaas aan ku lahayn Cafe National Million ka soo horjeeday oo ku joognaa markaa maartay Professor Maxamuud iyo aniga iyo mataqaana maxay odayga biyotoriga maartay maxay Maxamuud Goore Soomaad garan iyo ay soo maray afarta qof kaliya wahay halkaas markaa wixii ay ka soo bilaabato wax walba wada arkaysaan asaaska kadibna markaa agaasin guud oo markaa deetana la gaarsiiyay musarraf biilo markaa la xariisay markaa ahaa mataqaana maxay wakiil heer wasaaradeed oo markaa arrimaha bulshada oo dhan markaa loo dhiibay ayaan hoos imanayn isbaaquunka markaa maartay maxay walaalkii markaa tuka ka sheekay runtii ayaa markaa sports gacanta ku hayay oo xafiiska markaa wuxuu ahaa maartay maxay haajiray markaa jubba agteeda ayuu Cismaan markaa kula xafiis Cismaan runtii wuxuu ahaa nin runtii aad iyo aad in loo xuso u maartay maxay ku mudan waayo Cismaan inta uu joogay intii xataa markaa maartay aan ku jirnay maartay maxay kuliyadda iyo intii mataqaana maxay markii dhammaan macallimada soo galnay intaas oo dhan maartay maxay runtii aad wuxuu ahaa nin aad u dulqaad badan u samir badan oo dadkeena wada aragto hadiyo jannada taqaana maxay dacwadda iyo doodda iyo maartay maxay faalladu way nagu badan nin aad waxaas runtii aad ugu dhabar adeeg buu ahaa maartay runtii aad u qiimo badan tiiba markaa gaarsiisay heerkan markaa in maartay wasaaradii ay ku soo wareegto agaasinka guud oo heerkaas soo noqdo marka waxa weey walaaleel waxyaabahaas oo dhan markaad ka waranto waxaad u arkaysaa waxa weeyaan waqtiga waddanku joogay marxaladiisii ayaa waxay ahayd marxalad ummaddu ay fayowdahay oo wax walbana uu baraka leeyahay wax walba mataqaan maxay qiimo leeyahay oo garoomada dadka saan oo dhan wax lagu gali jiray waa shilin iyo shilin waxaan kaas lagu gali jiray haddana mataqaan maxay dadku mataqaan runtii aad iyo aad maartay maxay ay u wada jeclaayeen in maartay maxay ciyaaraysa in maamulaysa in daawanaysa gidi aan maartay loo kala harsanay taariikh markaa haddii markaa aan maartay waxaan haddaan anay taariikhdeedii maalinta ilaa maanta aan ka hadlaynaana runtii wax lagu soo koobi karo
daqiiqada iyo waxaan midna maahay laakiin inta ugu muhiimsan inaan ka hadalno baa muhiima garoomada aad arkaysaan oo dhan garoomo inagu aan samaysanay ahaayeen runtii stadio coni levelkee waagaa uu ahaa iyo levelkii markii dambe aan maarata maxayda gaadhsiinay inaan maarata maxayda dhisno inaan caws ku beerno inaan nalalkii mataqaana xitaqaamiinka lagu ciyaarayay inaan ku samayno waxyaabaha ugu qosolka badnaa waxay ahayd maalintii cagabta aan gaadhinay garoonka stadio coni meelaha noogu darnaa waxay ahayd meelaha maarata goolasha agtooda waayo waxaa jirtay qolooyin ku shaqaysan jiray baa jira arrimaha daawista iyo waxani markaasaa waxaan ka soo gurnay intaasoo digaagadood madaxooda iyo timo iyo beli iyo maarata maxayda iyo cidiye iyo wax aan ka soo guraynay ilaahay ubaa garanay subxana watacaala aanad odhanayn ummadaas ma islaam ba haddaba waxaa dadka aaminsan ya haddana walilahi alxamdu maarata maxayda garoonkii waa maarata maxayda ilaahay waa maarata maxayda nagu guulaysiiyey waxaa ku xigay markaa maarata garoonkan 21 october 21 october gacantaan ku dhisnay marka aadan maxamed cali baa markaa joogay oo wasiir ahaa waxay ahayd markaa inaanu galabtii 5 galabnimo la bilaabi jiray ilaa habeenkii 11 baanu shubka maarata maxayda aan ku samayn jirno loo kala hadhayn marka maalintii la furayay ayaa waxa lagu qabtay markaa laba kooxood maarata waxa suusaada kulay maarata kooxii culo hadda waxa suusaada ma garanayo ayaa markaa waxa yimid goolihii sare oo dhan baa soo fadhiisay safkii hore maxamed siyaad barre iyo mataqaan maxayda iyo salaad gabayri adigu waa goolihii sare koob iyo maarata 25 koodiiba way fadhiyeen cabdicasiis nuux xirsan markaa wasiiraha marka hadalkii markii aanu bilaabo wixii technicalities-kii iyo garoonkii sidii la aanu sameynay iyo wixii oo dhan ka wada hadlay ciyaaraha hadda la qabanayay arrimahoodii markaan dhameeyay ayaan markaa wasiirka ku soo wareejiyay markaasaan haddana maarata xadarta wasiir ayaan ku soo dhaweynay markaa isaguna inuu dee markaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay cabdicasiis markaa wuxuu ahaan jiray qoladii SDU-da oo nin ka hadal badnaa ma jirin oo wuxuu ahaa nin aad maarata maxayday dee aftahama runtii muddo daqiiqada hadal ka soo bixi waayey markaasaa waa la yaabay markaa cabdicasiis oo meeshii microphone-kii anna waan ag taagana hadalna ka soo bixi waayey iyo ninkan oo loo yaqaano nin dee aan hadal dhaafayn baa wuxuu yidhi hal libaax arkaysaa ma godlato buu yidhi ya hal libaax arkaysaa ma godlato maxamed siyaad markaas waan iska godlo hadalkaaga iska bilaabaa la yidhi markaasuu hadalkii sidii ku bilaabay markii maxamed siyaad markaa uu yeedhay mataqaan maxayday cabdicasiis ayuu maxamed siyaad markaa maarta wuxuu codsaday markaa salaad gabayr allah naxariistee labadoodaba inuu markaa isagu markaa uu furo salaadda hadalkiisa wuxuu ka dhigay meeshaad ka timaadeen waad garanaysaa Chester Sportive ay hayde tanna maanta waad arkaysaane dee ciddii saad ku buuxin lahaydaan baa la rabaa buuy garoonkaas ilaahay wuxuu qadaray finalkii markaa oo iskugu yimaadeen orfane iyo waxa iskugu yimaadeen malaynayaa iyo Chester Sportive baa meel la soo kala galay waa iyagoo yimidaan meel aan ka soo galina ayaan weynay waana hadda waxaan bilaabaan 2 bilood 3 bilood dhanay halkaas markaa horta la arkay mataqaan maxay dadka jacaylka iyo loo qabo waxaan bilownay markaa ciyaarihii goboladii ciyaaraha gobolada markaa ujeedada u weyn sameynayna waxay isdhexgal markaa dadka in la isdhexgeliyo marka 8 gobol bay ahayd waagaas waxaan midalan Hargeysa oo kale oo gobolada waqooyi oo dhan ahayd waxaanu dejinay Warrigle Togdheer oo kale waxaan dejinay mataqaan waa bari maxaan ku yiraahdaa Kismaayo kale waxaan dejinay mataqaan maxay Ships halka markaa ujeedadu waxay ahayd in ciyaariyahankani uu qoys lagu dejiyo maartay la dejiyo oo qoyskani mas'uul ka noqdaan oo dabeetana isaga mataqaan maxay cunadiisii iyo mataqaan jiifkiisii iyo keenistiisii iyo celistiisii marka ina kan gobolka ka imanaya inuu maarta ehelkii uu ka yimid ma hayna halkan inuu ehel markaa ku yeesho taasi markaa runtii waxay samaysay mataqaan maxay xamaasad aad u qiimo badan oo dadkii halkan joogay goboladii halkan baa goboladoodii nin walba markaa ay noqotay inuu markaa soo qaato markaas mid muufa soo qaadiyo mid qaad soo qaado caleentii jaadka sida ulula waxay noqotay markaa dadkii oo dhan runtii wax meel loo kala hari waayo runtii aad u qiimo badan halkaana waxa ka soo baxay ciyaartooy aad u far badan oo markaa seeriya bidii seeriya maarta maxay shiidii iyo bidii aadii inay markaa ciyaartooydii ay kala xushaan oo markaa maarta maxay kala halkaasna wax badan baa ka soo baxay haddana interscholasticadii baa bilaabatay ciyaarihii waxa bilaabmay maarta maxay xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidamada oo isku wada jirtay waxoogaa markaa taasi rabshado badan inuu keento oo had iyo jeer qolada booliiska oo maxamed sheekh Cusmaan oo Allah naxariistay markaa booliiska watay iyo cali samatar iyo Cabdalla Faadil oo watay mataqaan maxay militarigi in mar walba mataqaan maxay markaa garoonkii uu dagaal ka dhaco markii dambe waxa lagu heshiiyay waxa weeye dagaalkan maalin walba joogsanayay labadooda la isku daro horseed ha loo bixiyo waagaan waxay kala ahaayeen Bakool iyo Dir marka horseed baa soo baxay horseed markuu soo baxay waa qabownay marka way waxay noqotay marka hal maartay military dambe iyo askar dambe ee isku soo maartay baxsanaysa amaan baan runtii marka maartay laga helay ciyaaruhu horta marka spiritkaas ayay ku wada socdeen aad bay marka u far badnaayeen oo marka maartay international ciyaaro badan baan marka aan maartay maxay ka mid noqonay waxyaabaha marka markuu waddanku dhisnaan ama qiimaheeda aad ku garanaysaa waxa weeyaan ciyaartooyda qaranka oo kale marka ka qayb galayno runtii marka qaarkood
diyaarado khaas ah la siinayay inaan mataqaana maxay kaga qayb galno Central Africa oo kale markii mataqaana maxay finalkii 8 kooxood u dambeysay ee isku wada timid Africa oo dhan aan ka qayb galayno على سمات روحنا نسيه ديارات مثلا محيدة فكرة فكرتي هل كان نجا أيها نجيسة إلا أي مثلا محيدة سنترال أفريقيا إلا أنت عياروه كده مين أي إيربورت إنه فدي نعم قيمة صومر نيجي قدرين أنت مثلا محيدة ودكينه مركا واحد حسوسا ما نتي أوري مركا يعني شركة فريسانية مركا اسمه أداة كوحة لسبيني با مركا قرا عذر دار صوش يا توتيري وكسو قيب قال مركا صار محد يوشي وإذا نجا صومر لهين سوق هذه لهين يا نعم وجدد مركا واضح من عينه وإن مركا ضد مارس محيدة نول أو مثلا محيدة قدرين تيذاني واحد حسوسا عياري مثلا محيدة أولا في جيمس كي صدق هي تضاد في نيجيريا أنه كقيب قال لي واحد كقيب قال لي مارس محيدة لا دوري أفرتن عياري مركي دم 1978 كل وقت مركا محيدة الجيرس وهاي عياري مركا مارس محيدة أولا في جيمس كا واحد سوماري إيرلاين أو دم بأنا قلنا لو بني بقول يصدون كرسي أنا قاعد كلاهين بقول يصدون عيارتوي وعيار والبا أبان وكذا قبل قبل بتغير محيط سنتر أفريقيا عبد القاسم ما مركز جوج مركز واحد محي واحد صور المارس لأن يرد هذه جوج تاني أركان ويان وحن أذكر ثاني مارس سبورت كان أذكر ثاني مرحلة وصومر يرونتي مرحلة وحياة يرونتي مارس آد القيمة بدن سمعت ولا ثنا مارس محيط يرونتي أدوك ورنا نقول الله إنه قدرين تيدا إلى هاي كرامة المكان أذكر ثاني متقن محيط سادي كون إباحة محيط مقدشة أفريقيا تضواتنكي وهي تشاينا أيام تقريبا متقن محيط كوفيد تضواتنكي وأنا كقريب قال عياره هي أفرو إيشيا أن مارس محيط لاتين أمريكا جيمسكي أنا كقريب قال تامر كده ما ثان هذا المكان ده واحد سيمينار مركز كورس اللي بالوضع هو هاي سبورتس أدمنستريشن وأنا مركز الله يدري تي مركز صودا ما يسنى بان مركز وحنا كعص سنى سفارة إن أولو أي مارس محيط لا قلان سيد متقن محيط قرون ماذا أي نوع ولا هي تشاينيز أفريقيا تضواتنكي بمركز وفتي نوصل درين وفتي جيبان نوي مدين إنجنير دي meesha aad arkaysaan oo bacaadku marka usha sida loo geliyo waxaan u maleynayaa mitir iyo badh bacaad baa fadhiyay maalintan markaan meesha isku raacnay meesha maarta maxay tagnay wixii baa la wada qaaday wuxuu dhismayay markaa ilaa 3 sano 77 waxa ku qabanay markaa East Central African Mars maxay soccer games waana waqtigii dagaalku markaa uu soo dhawaanayay 76 markaa oo iyadana ciyaarihii Olympiga mataqaan maxay Riyadh aan ka qayb galnay ayaa markaa waxaan soo ogolaanay inaan iyadana qabano ciyaarihii mataqaan maxay maarta Arab Student Gameski oo la qabanay 1979 September la qabanay tiiba markaa dibadeen dib ugu noqday markaa maarta maxay Riyadh oo boqor Khalid Allah u naxariistay ahaa maarta boqorkii Sacuudiga ayaa markaa waxaan ka codsanay markaa inuu naga caawiyaan maarta maxay dhismaha garoomada iyo waxaasi 35 milyan oo dollar ayuu say ugu soo saxay lacagtii baa markaa waxay soo martay mataqaan wasaaradda arrimaha dibadda dibadda Central Bank ay soo gashay dagaaladii 77 baa markaa waxa loo baaday hard currency dibadana markaa lacagtii waxay gashay xagga dagaalkii bay gashay iyadoo markaa inoo dhiman tahay markaa sanad iyo markaa maxay iyo 2 bilood 3 ilaa sanad iyo 3 bilood ciyaarihii waqtigan qabanayn ayaa markaa hameennimadii iyadoo markaa Uganda iyo Soomaaliya ay kubadda maarta maxay ku ciyaarayaan maanta maxay garoonka weyn ee Saadi Muqdisho ayaa markaa Cabdi Madow noo yimiday markaa aniga Cabdi Qaasim baa waxa la yiri waxa la idin ka rabaa madaxtooyada hameennimadii markaa 10 hameennimo ayaa madaxtooyada tagnay guddiga siyaasadda oo dhan baa fadhiyay markaa محمد سياد ودحدا أي فدية أي صدق هذا الكلام فدية ما كان محيدي على سمتر حسين كلمية هي واحد فدية أنا طفلة أنا عبد القاسم مركز كان فريساني مركز وحي السوداء يقولوا وحي برنامج كيني حاجة أبو حمر ثاني وحي واي مدد وي وينقولوا ده مركز ونوش يعني أباب الماشي واحد مريان واحد بس يوسع السودان واحد كلية مركز نوت تاجنين تاي اسمه ثانا الله بشر كذوذ مركز منا مريكان منا جرمالة إن ما أعرف محيدي أنتي أن كوض هذا لي ماشي أصلا إنه مريسو لكن ولي أن واحد فايناليزيشن يعني قاعد markaan dhameynawday wuxuu yiri inta kale oo dhan waan uga lahay buu laakiin wuxuu waxaan weydiiyay kacaanku maanta intee sano wadanka ayuu soo maamulayay buu markaasaan waday 8 ilaa 9 sano 8 sano buu yiri nimankii anigu aan dibadaha u diray buu ee jaamacadahoodii soo dhameystay architects ka ahaa bad ileedihiin buu yiri maanta wax ma dhisi karaan meediga dhaadhicin kartaan buu ya goormuu ninkan wuxuu soo bartay wadankiisa ugu faa'iideynayo haddii maalin walba nin ajnabiya wixii la keenayo wuxuu yiri lacagta waan isticmaalnay buu yiri lacag kale oo hard currency ani ajnabiya siinayana ma hayo arrintaas waxay noqonaysaa inaan anagu samaysano arrintii markaa waxaan ka cabsanaynaa inay mataqaana maxay duruuftu waayo hadhow mataqaana birbaa gooday iyo sibirkii baa go'ay iyo kanaa go'ay iyo waxaa mas'uuliyadeeda hadhow culays baa nagu noqos fikradda ayaa keenay buu waxa keenay baan markaa Shariif Abubakar oo ahaa injineerkii mataqaana maxay wakaaladda dhismaha Shariif baa la yiraahdaa soo kiciyo saddexdii hameenimo markaan marayno shariifkii intii lagu maqnaa markaa wuxuu yiri iska maarta meeshina fariista intana maarta arrimaha iyo waxa kale iska sii wadanaynaa marka Xasan Rubeyti markaa oo Xasan Maxamed Siyaad oo Corneel ahaa oo ahaa de basketball champion sportiga
baa yimid wuxuu yidhi hadiyo shariifka ma taqaana gurigiisa waxsaan ha waan aqaan xilligaa saddexda oto hadday ku garacda naftaa ka baxaysee aqalkiisa inagu aan u tagnaa soo qaadna buu yidhi otuu la hadlay marka uu yidhi korneyl xasan maxamed siyaad baa idinla hadlaya markaa shariifkaa toosinina annaga ay marayna shariifkaan sidii kusoo qaadnay shariifkaan u sheego waxaa arrintaas caawa lagugu yeedhayahay dee jawaabteedaa lagaa rabaa shariifkii markaa nimidnay maxamed siyaad baa loo sheego waxa la yidhahay shariifka waa la keenay soo gala buu yidhi intelligencekiisaan kuu sheegay marka wuxuu yidhi shariif intay rabeen ma kuu soo sheegeen buu yidhi ya markaasuu cabdiqaasim soo bowduu yidhi waxba buu yidhi jaala siyaad buu naftaada hadaanin buu anigaan hadaanin haddaad go'aan gaadho go'aankaaga noo sheeg laakiin miskiinkan aad wanjalaysa buu waxaan u sheegnay ma jirta barnaamijka dhanba isagaa keenay sharif maadaa keenaa la yidhi oo markaa fadhiisano markaas yidhi anaa keenay maxaad ku keentaa la yidhi waxaan ku keenay buu yidhi duruufta aan taaganahay buu waa jaamacadda ummadda marka dhismaheedi markaa socday oo wuxuu yidhi qoladii economiga maarata maxay dee Europeanskii naga caawinayay dhowr jeer bay lacagtii inaga go'go'day marka ilaa haddana weli way socotaa marka taasoo socota haddaan tanna bilowna buu yidhi marka waxay noqonaysaa wixii inaan culays aanan u qaadi karayn isa saarno laakiin qoladan wuxuu yidhi waxaan la galaynaa heshiis aanay ka bixi karin waxoodoo dhan iyagaa hal mar wada keensanaya waana dee maarata international wadada yaqaan wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey juba 1970 soo ma guban buu yidhi markuu gubtay buu yidhi adigu markaa heerka aad taagneed maxay ahayd ma taqaanaa buu yidhi agaasimaad ahaan jirtay buu adigii anigu buu yidhi mas-uuliyadda ma qaadnay buu yidhi inaan dhisna buu yidhi juba ood maantana arkaysa buu yidhi ma taqaana maxay heerka uu yahay buu maantana maareeyo guud baa tahay buu yidhi markaad agaasimo ka timideed maareeyo guud noqoto ma inaad hore usii socotaa rabtaa buu yidhi mise dib baad u soconaysaa buu maxaa marka waa moogtahay waa la gabinaya markaasuu yidhi maya taas ugama jeeda buu yidhi waxaan uga jeedaa buu yidhi duruufta anaa mas-uuliyadda kula qaadayaa la yidhi hadalkoo kooban baa la yidhi hadii wax alla wixii mataqaana maxay dhismaha ku saabsan shariifka ku wareeji wax alla wixii kale barnaamijyaad wadaataanna green line baad haystaane mataqaana maxay shaqooyinkeena u diyaar galooba halkaan aniga hala igu yimaado markaa maarata maxay gorobadii dhismahoodii على كل حال هذو قرمدي سيدي بيكون اسمين لما كي أسكر سيد قال لي ده كسر نقضي وسكا وذا ما أعرف محيدي بوفس كل عيوت كذا لما كي بالله قلنا هو يهداي آخر كي هذو إلهنا أستوري وعياره رنتي كوب يلا باتندو لدود وعرب وترى لما كي يقول بدنا ده كسر قيم قلنا والنوع ورع عياره أيها لقى سوق قيم قلنا ده وهير أولمبيكو كله مركا أولمبيك مركا لقى هذا ما هذا سكر كليه لقى ما متقارن محيد لقى ما باسكتبول نوع كسر عياره أيها لقى قيم قلنا nooc kastoo ciyaara ayaan runtii si qaab nidaamsan oo laba qof oo isku dhacda midna aanay jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu dhameeyey gabdho waxay deganaayeen bolotechniga wiilasha oo dhanna waxaan dejinay mataqaana maarata kuliyadii jaalisiyaad halkaasaa basaskooda iyo waxooda dhan soo kala gurayeen qolobla garoomadoodii iyo waxooda la kala geynayay sidii international mataqaana ciyaaraha loo qabanayay ay wax walba ku socdeen marka waxa weyn horta sportskeenu meeshuu soo mari waad halkaasaad ka qaadan kartaan qiyaas ahaan nacam qiimaha uu ku fadhiyey iyo mataqaana maxay maamulka taana waxaa keenaya wax kale ma haddaan idiin sheegayaa جدي جاي وهالقف ما نسكوا هين ونسكوا هذا علول فيوبين ونسكوا هذا النية فرنين حسد دحدة يد مجرين حماني دحدة يد مجرين قبيل يوحن أردن منو آمن سنين به حتى مقعد غير كود إن مقع على بعض إن نسكوا قوم مجرين نان يسان حتى أنت بدأ غير نسكوا هذا نقال يوم قف كذا نيسيس إلا هو قرطه أيوم بقى مهم هاي مركب حوي ولا ريال ظروفاتي من دي مركبين هذا الله ونحرس إن تيو حاجة آدم لورن يوم حكون أنت بقول يا فريق صدق سنة أو ده ها قولوا دي أبوانة الصومالية كم ده ayaa xikmad uu ka tagaa wuxuu yidhi 7 tagay midka wali soo socdiya saaka waxa jooga saddexda waqti xaaladun lagu sifeeyay soo noqday male shalay wixii saadu fee tagay saad dambiye berina waa sad ka maqan waxay taladu ku soo bantay subaxaad joogto imkoon is weydiin waxaan qaban karo marka waxa weyn maanta gudigeena Olympiga iyo intii iyaga ka horeeyay deemaart maxay aadan xaaji baro Allah naxariistay iyo mataqaan xaaji faarax iyo waxa soo dhan maanta maxay runtii halganka ay soo wada galeen dhan maanta halka taagan tahay inaga waxa marka waajibkeena saaran wuxuu yahay meesha ay taagan tahay maanta inaan halka ka boodno marka inaan garab ku siino inaan sii xoojino inaan maarta maxay sii hagaajino tirada hadda uu sheegay hadda example way marka ay hadlayaan maarta maxay madaxdu hadi jeer waxay yiraahdaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta 175 bay kaga dhacayaan tirakoobka ummadda marka laga hadlayo waana 30 sano wixii ka yar 30 sano wixii ka yarina de wax arkayba ma aha nolosha aan ka hadlayno وأوح أركيه مثلا محيدي مالك صور عيه هكا كبر عيه كلا هكا كبر عيه مثلا محيدي بوف يبعض مركز ذكر سنة وحوي بهي وحوي مثلا محيدي بنتلي مارس محيدي إنفرنتي مارس لو ديجيو وحكلي مجتمع ديسي كرانة وحويا وسبورتس وحكلوا ديسي كرانة مجرد مركز دولة دينا نفرنتي وحيبها كل طلعنا وحويا إن ميزانية ذها أي كل حساب تبين أغلبية الحقوق اللي يساران دينا مثلا محيدي وحبرشة إيه مثلا محيدي سبورتس waxbarashadana aanay noqon maarta maxay jaamacadahan la leeyahay qofkani waa maarta maxay bachelor luqaatiis iyo luqaatiye in vocational schools oo qofka mataqaana farsamo maarta la baro
waayo ciyaaryahanka laftarkiisa imka adarkaysaan hadda waa laga sheekeynayay ciyaartooy badan oo ciyaartooydii hore ahayd oo maanta dee maarata hawlgab ku jiraayey waxaa laga yaabaa inay farsamo kale oo kubadda ahayna yaqaaninba inaanay jirin taasina marka waxa wey qofka maarata mustaqbalkiisii iyo noloshiisii oo dhan markaa maxay way xadidaysaa marka in loo sameeyo mataqaana maxay wax maarata maxay farsameed oo aanu qofka sportska kaliya ka dhigan mataqaana maxay inuu yiraahdo sportska iyo noqonayo field ma ahanayso taas waxa weyn inuu maarata maxay uu maarata maxay wixii kalena loo fududeeyo laakiin caqliga fayoobi sidiisaba wuxuu ku jiraa waa jidh fayoowaya jidh fayoowna waxa lagu heli karaa waxa weyn in la qorsheeyo oo la nidaamiyo oo dabeetana la sameeyo waayo dhalinyarada waxa weyn haddaan iyaga la jihaynin iyaga adiga ku jihaynay waa taa maanta adalkaysa ama isqarxinayaan ama mataqaana maxay dhibaatooyinka kale mataqaana maxay maskaxdoodu ay keenayso marka in la habeeyo oo garoomadii oo dhan dib u habeen xoog leh lagu wada sameeyo garoomo cusub oo kale oo fara badanna intii lagu dari karo lagu daro laakiin ay mataqaana maxay meeyarka magaalada oo kale magaalada qurxinteeda iyo mataqaana maxay hagaajinteeda isaga mas'uuliyadda saaranta in markaa mataqaana maxay maarata maxay orientationadii mataqaana maxay garoomadii ku dhex yaalay dib u habeen laftarkoodii lagu sameeyo in garoomadii jiray oo dhan mataqaana dayactir wanaagsan lagu sameeyo in maanta dadka dibadda joogayay maanta waxaan haysanaa dad aad iyo aad potential waagi hore waxaan xusaa lixdanadii Kenya iyo mataqaana Ethiopia waxyaabahay nagaga badin jireen marka laga hadlayo ciyaaraha fudud oo kale ama basketka oo kale waxay ardayda scholarshipska ee jaamacadaha u dirsadaan oo marka fursado helaya mataqaana maxay ay maarta nolol wanaagsan iyo caafimaad iyo macallimiin wanaagsan iyo de maarta maxay ay tababaro wanaagsan inay helaan ba marka qaran ahaan ay u ciyaariyaan soo cishin jiray dabeetana ay u ciyaari jireen inagu maanta waxaan haysanaa waxa weeyaan ugu yaraan ilaa 300,000 oo maanta dhalinyaro ah baa dibadda inoo joogta marka kuwaas oo kale haddii laftarkoodii mataqaana maxay si fiican loo habeeyo laba faa'iido way leedahay faa'iidada leedahay waxa weeyaan iyaga inay dhaqan celin u noqoto waayo waxa weeyaan marka ilmahaasi isku luqad ma nihin mar haddaynan isku luqad ahayna dee isku dhaqan ma nihin mar haddaynan isku dhaqan ahayna dee waa qof ajnabi ah marka ku soo celinta aan ku soo celinayna waddankiisii marka waxay noqonaysaa inay dhaqan celin u samayso oo ummaddiisii marka maarta maxay ku soo laabtay isagoo jinsiyadda kale haysanaya laakiin inuu garto marka maarta maxay inuu ehel leeyahay oo abtigii iyo adeerkii iyo eedadii iyo abtiyaashii wixii dhan u barto marka waxa weeye walaalayaal markaan arrintii soo koobano waxaan maarta muddo aan ka soo hadlayna 30 sano 40 sano 50 sano wax lagu duubi kara mataqaana 20 daqiiqo 30 daqiiqo midna maaha laakiin muhiimadda waxaan nagula dardaarmaynaa waxa weeyaan maanta anagu waan barbar taagana ma tii ruushaya waa tii dhabta ahayd weeyaan waa tii dhabta ahayd weeyaan waan barbar taaganahay wax alla wixii talooyin ay nooga baahan tihiin oo dhan from A to Z walaaliya inaan la qabano wixii waayaarnimadeeda ilaahay baa waajib nagaga dhigaya laakiin idinka waxaan idinka rabnaa waxa weyn inaad ku calulfayobaataan in qof walba uu naftiisa ka fikirin oo qofka kale walaalkii ka fikiro waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix wuxuu ku yiri wallahi la yu'min buu yiri saddex jeer buu ku celiyay wallahi la yu'min ilaahi ma uu rumaynin hatta tuhibbu li akhiika ma tuhibbu li nafsik illa ad walaalka wax naftaada la jeceshahay aad la jeclaato rumayntaas sheeganaysa waa beenta baa lagu marka qof walba waa inuu yiraahdo hebel ba aniga igaga fiican aynaanu oran waxaan aniga ugu fiican yahay aniga waa shaydaan wax ka soo saaray weeyaan mataqaan maxay jannada markii la yiri mataqaan maxay aadan u sujuud ya ana khayr minhum minur ya khalaqtani min naar buu yiri wa khalaqtu min diin ciid baad ka abuurtay min qof aad ciid ka abuurtay anigu sujuuday aniga daasuu kaga soo baxay jannada Soomaa innagana aniga hadday soo gasho waxa weeye way noo dhamaatay marka waxa weeye qofku waa inuu hadiyo jeer yiraahdo qofkaas waxa aniga igaga fiican oo isagu markaa maarta maxay uu maarta la yimaada wax mataqaan maxay tawaaduca islaamnimaduna taas walaaliyaal ku jirta taasana ilaahay nagu liibaaninaya marka waxa weeyaan ummadeena maanta wayna sugaysaa marka burbur badan bay soo martay 30 ka aan ka hadlayna dhalinyarada ah ee daadoodu 30 sano ka wada yar tahay ee maanta aan aragba mataqaan maxay wax waddanka qiimaha u lahaa sabab garan ee adduunka inaga ay ahayd 4 waan xasuustaa wallahi 4 ilaa 70 waddan kasta oo Afrika ah ama waddan kasta oo Carbeedi arrinna inaanu la tagin mataqaan maxay ururada caalamiga ah lama tagi jirin ilaa inaga ina soo maraan yiraahdaan arrintaas aan u baahanay inaad wax gacan naga qabataan inaga ahayn marka dadka isku wada xidha hadday tahay Carabta iyo hadday tahay Afrikaanka iyo hadday tahay mataqaan maxay caalamka intiisa kale taana way iman doontaa insha Allah wa biidnaahi karim sababtoo maanta khibradeedina waa leenahay inta dibadaha joogtay hadday soo wada noqoto intiina gudaha joogtaana aad ogolaataan kuwa dibadda inaga imanaya dad idin xoogay inaanay noqonay boosas inaga qaadayeen aad u aragtaan dad inni kaamil yeelaya oo mataqaan maxay idin maarta idin taageeraya taa markaa dibataan aan moraal yarsaas markaa maarta waddankeena insha Allah sharaftiisa iyo karaamadii uu lahaa aan markaa maxay dib u soo ceshano ilaahayna haddii waqtiga ayuu na gaarsiiyo insha Allah waa wax soo noqon doona waayo wadamadan Yurub aad arkaysaan oo dhan waxaan maanta soo marnay wala soo wada maray ciidan soo marin manager ka daran bay soo wada mareen laakiin inaga waxa la fahmay maanta sirta kaliya ya ilaa inaga adkaaday taana research la sameeyay idin sheegaya marka jawaabta ka soo baxday markii la yiri Soomaali bal ha la soo ogaado asalkooda meesha ka wada yimaadeen intaasaan ku soo gabagabeynaya marka niman research sameeyay oo de jaamiciin lagu sheegay baa waxay yiraahdeen markaan soo ogaanay
waxaan soo ogaanay in Soomaali dhamaantood inay ka wada baxday hal jaamacad jaamacadduna waxay u dhaxaysaa miyi iyo magaalo qof kastoo Soomaaliya ama miyiga ha joogo ama magaalaha joogo waana siyaasi waana aqoon-yahan PhD baa la wada wataa waxba ciidanayaan beenta loo sheegay ma yiraahdeen hal jaamacadoo u dhaxaysay miyi iyo magaalo way ka wada baxeen magaca jaamacadda waxa la yiraahdaa Qabyo ma dhamaystirna 6 fakaltaa ka furan marka fakaltiga koowaad waxa laga bartaa qabiilka ka labaadna waxa laga bartaa qabka isla weynaanta ka saddexaad waxa laga bartaa maartay quursiga ka afaraad waxa laga bartaa qaylada ka shanaadna waxa laga bartaa qaado ka lixaadna waxa laga bartaa qayl lixda markuu dhameeyo shahaada la yiraahdo adiga quman ayaa la siiyaa ummadeeni waa kuwaas hadda saad ula dhiil gareynaysaan nin walba idinka la inaga rabo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin markaan anaa kusoo noqday runtii odayaasha inta kasoo qayb gashay maaragtay qadadan aad ugu mahad celeynaa haddana guddiga olambika soomaaliyeed anoo magaca guddiga fulinta ku hadlahay qodobada laga hadlay iyo kulleyba mediana dadka kala socdaa way ka faa'iidaysan doonaan maaragtay taariikhda isboortiga Soomaaliya in kooban waayo laguma sida mataqaana hadi sheegay laguma dhamaystiri karo waqtigan inta waqtiga la soo maray 20 sano iyo ka badan wixii la soo maray haddaan taa raaco mataqaana xaaji tuke Abdullaahi runtii waan soo xasuusiyey 2001kii maaragtay guddiga olombikada dhismihiisii marxalad waxay ahayd runtii soo maray 2001dii waxay ahayd sanadkii aan bilownay waxa la yidhaahdo doorasho boqolkiiba boqol maahan laakiin waxay marka wax kastana waxay ku bilowdaan si hoose ku bilowdaan ka bacdi sanad ka dambe way ka sii fiicnaanay waxaan xasuustaa 1997 marka xogaha laga dhigay dadkii waxaan ka mid ahay oo la ogolay in waxaan magacaabidda laga saaro oo laga dhigo doorasho loo bedelo sida caalamkuba oo qabo innagana inaan la jaan qaadno dadkan aan barno awareness ay noqoto dadku ay ogaadaan maarta waxaan ka fahimta waxaa ka mid ahayd in yani maskaxda dadka ay ku beerantay xiriirka inay dhisaan kooxihiisu ay dhisaan waayo muddo badan ay magacaabid kusoo socotay laba olombikadana inay xiriiradu dhisaan olombika dii haddaan maqasho sida cabdullahi uu sheegay waxa waaye waa xiriirada waa olombika haddaan maqasho maasha allah marka waan soo xusiyey cabdullaahi weli sidaadii iyo positionkaagi anoo ka hadlaya magaca olombikada afhayeenkuna u noqon kara in maarata sidaadii booska maxamed xuseen hadi may dhalinyarada iyo waxa meesha jooga dad badan waxaa jira sportiga gadaal kasoo gala sida adig kulley waa ka warqabtaa Canada iyo Maraykan waa u badan tahay marmarna waa Yurub waa imaatay Sweden waa nagu timadeen marka dadkii faham badan ma ka haystaan qaado ku qabso ku qadimaysta camal meesha ka taal sababta isugu keen laadiin dad hal magaaladooda deg inay tartan kala qabsadaan waxyaabaha noocaasa horta Sweden waa ka baabaaday hal xaba ku soo haray laakiin ingiriiska weli inuu jiro amalina laba camal Canadana waa ku xooggan yahay Maraykanka waa fara badan yahayba qolo walba magaca ingiriisku inay laba saddex camal wax yar marka dadkaas naftigoodu waxay u baahan yihiin maaragtay in wacyigelin loo sameeyo ana dhowr maraan inta ka qayb galay cayaar oo lagu dhigayo Stockholm iyo Finland Helsinki marka waxaan arkay qaabka ay wax u maamulayaan marka waxaan nimi saan idinku habboon waxaas ku nacaysaan waxba maamo meel waxba ka jirin wax yar oo sandarartaa oo maamuladan la weydiinayo inaad isku dagaashaan ama kala tagtaan sport iman ma markii dambe waxaa yidhi mar dambe ninkii Cabdullaahi Axmed Darbi iyo wacay iyo waca laakiin nin xogeeya olombikada markaas ahay olombiga magaceeda nin ugu casuumi kara ma jiro shirarkiina casuumadiinana waa joojiyey xoogaa adigu muddo dambe ka bacdi qola is wareysatay war hadda nimanka maxaa isku nacaynaa waay
qolooyinkii bashiir jey iyo gurigo dhex galeen waxay dhaheen annagaan ka fadhiisana marka raggaas walaala ayagu ha wadaan marka tanazula meeshaas naftigeeda ka yimid qolooyin kalena saasoo kale in tal la guubaabiyo la garad siiyo xoogaa ay naftigooda ay ku cibro qaataan inays wax macnaha ku darraa meesha halen maxamed xuseen hade insha allahu adigu kulli waa ka tashan doonaa haddii aad maaragtay isla yeeleen dhanka oo diasporaa awoodda jirta oo isboortiga waa run wiil soomaaliyeed in lasoo dhaweey waayo sida haddii noo suuro gasho nin inda buluga aan usoo dhaweynayn hadduu magaca soomaaliya ku tartamaayo waayo kuweyniba qola kala tamaan 10,000 mitir waxaan maleynaa 6 wiil oo soomaaliya oo hal mid keliya soomaaliya magaceeda ku ordayo yaa jineer ka orday inta kale mid Canada ka yimid ingiriiska Norway xagga meel kasta marka sidii dadka loo dhigay adigu wax gooni kale ma samaysan kartid mana ku jiri karo weli marka dadka weli qaarkood problem ku jira hawaaye waagii cayari gobolada ee doolka aan la bixishay ha tii yaa ku dhigan ninkan gobolka ma degana iyo yaa degan meesha dadka waxaa dhacday in la kala xado oo jinsiyad la siiyo baasboor la siiyo dareeme waxaa la yidhi sacuudiga iyo barashar waxaa lagu saaray inay gabdho keenaan marka culimadeena waa garsan yeelna waa fakireen waxay safaaradda oo Ethiopia ku leedahay dheen gabdhaha Ethiopiaanka meesha joogo qaarka aan ahayn qualification badan haysan soo siiya laashi basaare waa baxe meesha lagu tartamaya tage waddankeeda ku noqonaya xoogaa waxeeday siinaayeen laakiin in sacuudi ma imaanayso marka isboortiga waa xeelada badiyey marka laakiin waxaan isleeyahay aniga shaksiyan waxaan dhihi lahaa diasporaha dhalinyarada jirta iyo awoodda jirta ama maamul ha noqoto ama ciyaartoy ha noqoto tababar ha noqoto wax kasta ha noqoto ma nacayno laakiin waxaan qaadaynaa sida Jack Roach oo kale Jack Roach waxuu kusoo kordhiyey international olympic committee-ga the clean athlete ciyaartoyga nadiifka awal ciyaartoyda la dhihi jiray mogtahay laakiin isagu wuxuu raacsiiyey clean athlete marka wuxuu ka reebay kuwa doping iyo waxaas isticmaala dhan waa ka reebay ma clean maaha marka dadka encourage garana wuxuu waa clean athlete marka anaga ma dhihi karna the clean diaspora qof waxaa jira mogtahay yani ku jirto qiiro isboortinimo wadaninimo wanaag iyo ixtiraam iyo xushmad leh okay laakiin sida xiriirada qaarkood ay marna kulmaan ciyaartoy oo waxaan u haysta Djibouti ilaa 10 ciyaartoy dibadda laga keenay 2 week ma joogan 4 horaa laga celiyey way xiriirada dhexdeeda iqbaalkii drugs iyo balaa ku isticmaalay horaa laga celiyey marka waxaan ka wadaa ay naftirkooda ha ma wada ficnee inta fiicanna aan la ignore garayn inta xunna la yirahdo naga jooga la yirahdo marka taasna anigu waa soo dhaweynaa waayo cudud naga maqan waayo dhinaca kale barnaamijka aan bilawnay waa idinka sheekanaya 2020-ga programka youthka waxaan rabnaa inaan youthka bilawno waxaa ka horeeya marka taas laba ciyaar oo youth ah Africa Youth Games iyo Youth Olympic Games oo isku sanad dhacay oo July iyo October kala dhacayeen Algeria iyo waxay ka dhacayeen iyo Buenos Aires marka barnaamijka bilawnana waa furan yahay waa xiran maaha qofka diaspora jooga qofka waddanka dhinaciisa kala jooga yani waa rajeynaynaa weliba waxaan leenahay cayaaraha hadda dowladda ay soo ballan qaaday oo wasaaradda soo ballan qaaday in lagu daro naftirkeeda laga dhigo olympism oo football keliya aan laga dhigin orodada iyo baashidkii wixii geli kara markaas oo suuragal ah in la geliyo waana kolley wasaaradda waa bandhigi karaa meeshaas naftirkeeda in laga raadiyo xul inay yimaadeen maadaama sponsor la helayo oo soo qaadayo oo keenayo meeshii annagana wixii farsamaa xiriirada tagaaya macallimiina tagaya inay kasoo xulaan iyadana dhinacaas waa rajeynayna laakiin waa furan tahay barnaamijkeeda furan yahay xeradeeda waa furan tahay ciyaartooy qaara kusii jira welina maaragtay waa furan tahay insha allah marka taas maa jirtaa wixii kaloo fikir lagu daraayana odayaasha dadkii ninkii wax soo dhaqi jiraa maaragtay wax la weydiiyaa